السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارت شرفت يا كرامة بدن أدبانيني سلامينا وقت عردون نولل وناكسن يا عافيمات ما يندير رجينينا كسور دوادا كنال كينا عافيمات كيدريال كعافيمات كنولوشا مقال كان وحاينو كغا هالينا بيا بحد دقدقا يكوية ما عدين تبادن رقا نوعيدو kala duwan haddii ay tahay xayslayaasha iyo haddii ay tahay kuwa aan guursanba oo iyaguna qoraale inuu la wadaaga arrinta noocaas iyagoo walwal ka qaba xilliga mustaqbalka iyo waqtiga ay markaa nolol samaystaan. haddaba arrintan waxaa jira xilliyo hore muuqaalo baxay oo inuu kaga hadalnay qodobadan qaabka loo xakamaynayo ama qofku uga gudbi karo ee uu arrinta u xalin karo oo ay ka mid ahaayeen qabashada jidhka, nafaqaynta jidhka, soo celinta macdanta qubata ee jidhka, ka fogaanshaha siigada iyo aafooyinka xunxun, xakamaynta kulanka sariirta haddii aad xaasla tahay ama inaad yaraysato kulanka sariirta, tababar la siiyo maskaxda iyo in la joojiyo horudhaca iyo degdega kulanka sariirta xilliga goobta la joogo. kuwaas waxay ahaayeen qodobo lagu xalliyo oo lagaga salgaaro in biyabaxa degdega ahi uu qofka xal ay uga noqoto. laakiin maanta muuqaalkan aynu soo qaadanayno waa tikniikis kale iyo wado kale ayaynu raacaynaa. 3 shay ayaynu markaa ku soo qaadanaynaa muuqaalkeennan oo ninkuu ku xallin kara dhibaatadaas. inta badan farxadda qoyska iyo mabsuudka qoyska iyo iska ahaanshaha qoyska iyo horsocodka qoyska iyo taabagelinta qoyska iyo inay qoysku horu socdaan oo markaa ay dareemaan naacaw qabow iyo naruuro iyo iftiin waxa kowka inay israali galiyaan, dabeecad ahaan ay isku raali galiyaan, dhaqan ahaan isku raali galiyaan, diin ahaan isku raali galiyaan, kulan ahaan isku raali galiyaan. taas ayaa runtii muhiima. tanina waxa ay ka mid tahay aafadani ama dhibaatadan arrintan biyabaxa degdega ahi waxyaabaha carqaladda ku noqon kara horsocodka qoyska iyo farxadda qoyska iyo markaa naruurada iyo nashaadka qoyska. haddaba dariiqadan aynu maanta raacayno ama aynu u sheegayno dadyowga inta badan dhibaatada ka cabanaya ama xaaladda caafimaad ku guda jira ayaa waxay noqonaysaa kuwan soo socda 3 dariiqo oo ka duwan kuwa hore aynu u sheegnay inaad markaa aad samayso. 3 dariiqo intaynaan isku sheegin waxa aad u qurux badan marka koobaad inaad tahay qof cafiif ah oo dhowrsan. walaalka sharafka leh ee dhageysanayo haddii aad meelo badan ka dhacdo oo dalowyo badan aad iska riddo jidhkaaga soo celistiisa iyo nafaqaystiisa iyo qaabayntiisa iyo ilaalintiisa iyo keergarayntiisu waqti badan bay qaadanaysaa. waana kugu waajib inaad ilaashato tarankaaga iyo tafiirtaada, raganimadaada inaad ilaashato. waxyaabahan walwalka keenaya ee imika dhibaatada ugu faraha badan ay dhalinyarteenu ayna soo weydiinayaan ee mashaakilaadku ku badan yahay waa ishaxaad adigu aad ishaxaadayso, waa dhibaato adigu aad isku geysanayso. haddii aynu maalin kasta sida loo xaliyo aynu ka hadalno oo had iyo habeenba casharo ku saabsan aynu ka hadlayno xalka ma gaadhayno ilaa adiga go'aano badan ay ka yimaadaan oo talooyinka caafimaad weelayso oo kadibna aynu markaa solutionka iyo xalka kama dambaysta ah last justice forever inaynu sidaa ku gaadhno. haddaynu 3 qodob ku soo dhawaano marka koowaad waxa lagaga baahan yahay waa tight stomach muscles inaad samayso wax la yiraahdo tight stomach musclesku waxa adkaynaysaa oo tightness aad ka dhigaysaa murqaha kugu jira caloosha. waa qayb ka mid ah jimicsiga ama gym tag ama guriga ku ciyaar ama meel kale qabo calooshaada murqaha qaybta lower abdominalka ku jirta ee qaybta hoose ee murqaha inaad geejisaa waa mid ka caawin doonta dhibaatadan iyo biyabaxan degdega iyo aafadan ku haysata inay wax badan iska ka bedelaan. waa mid aad ku ilaalinaysa dabaca ay sameynayaan murqaha kaadi haysta ku hareeraysan iyo murqaha kale ee markaa uu leeyahay eriyadaas iyo qaybta markaa la yiraahdo cawrada iyo qaybta uur ku jirta qaybteeda hoose inaad adkayso waa muhiim. jimicsiguna waxa uu ka qayb qaataa inay dhammaan maskaliskaagu ay adkaadaan, unugyadaadu ay adkaadaan. inkastoo inta badan marka ficilkani dhacayo fariinta meesha ugu weyn ee laga soo diraayo maskaxda tahay
oo qofka halka ugu badan ee amarkaas uu ka yimaado ay maskaxda tahay oo loo baahan yahay qofku inaanu emotionally aanu israacin ama marka ay arrintani dhacayso ama kulanka xalaalka marka la joogo inaanu ninku soo wada jeedin oo dhammaanba dareenkiisa aanu halkaa iskugu wada geynin oo awooddiisoo dhan aanu halkaa focuska saarin oo aanay sidaa wax u dhicin mid qurux badan maaha taasi emotionally ama dareen ahaan neerfiskaaga markasta oo tanshankaaga aad soo celiso waxaa howlgalaya fariimo loo dirayaa hormoonadii sii daynayay iyo kuwii amrayay iyo kuwii kantaroolayay markaa macdantaada ama biyaha taranka ama dareeraha ragga taasi waxay abuuraysaa markaa qofku inuu qabsan kari waayo ama uu xajisan kari waayo arrintan haddaba qodobkani waa qodob kaa caawin doona anatomically qaabka uu jidhkaagu u samaysan yahay ayay wax ka caawinayaan waxaanay wax ka bedeli doonaan inay adkaadaan tiftaafyada ama murqaha dul saaran ee ku hareeraysan kaadi haysta iyo waddada kaadidu ay soo marto iyo taa markaa taranka macdanta ninku ay soo martaba inay markaa ay goobtaas dusheeda ayaa adkaanaysa murqaha dulmara ayaa adkaanaya waxay kuu keenaysaa ama ay kuu saamixi doontaa inay arrintan ay ku saacido oo markaa ay ku caawiso oo aad ahaato qof inay arrintaas ay ku soo degdegto way ka qayb qaadataa inay inkastoo aanay awood u lahayn inay dub celiyaan dareerahaaga taranka si kastay u adkaadaan haddana waxa ay ka qayb qaadanayaan inay caawiyaan inay markaa ay hor u soo dhacaan ama markaa awooddii xilligii iyo iyadaan la gaadhin waqtigii inay markaa hawshaasi ay timaado qodobka labaad ee dabcan arrintan aad ku suulin kartaa ama xal qayb ka mida ku caawin kara maaha inaad ku suulin karto qodobada waaweyn ee hore ayaa inoo suulin kara ama arrinta xalka kama dambaysta ahi waa inuu qofku jidhkiisa uu kaydsado muddo dheer jidhkana uu nafaqeeyo isla markaana aanu reer iyo xaas lahayn haddii uu leeyahayna muddo hakadgeliyo ugu yaraan dhowr bilooda inta jidhku aada isku celinayo waxaa intaa ka dambeeyaa waa inaad markaa wadiiqooyinka iyo qaabka dabeeciga aad marto mar kasta waxaynu ka digaynaa dawooyinka artificialka ama kimistisku ay sameeyaan ee lagula dacaalo arrintan inay aada uga fogaadaan dhalinyarta iyo ragga iyo cid kasta oo markaa dhibaatadani ay ku timaado qodobka labaad waa black pepperka inaad qaadato filfisha iniyaha madmadow ee filfisha ah ee shaaha lagu darsado ama cuntada lagu darsado ee kulkulul haddii xilliga goobta sariirta aad joogto aad qaadato kulankaaga haddaad nin xaaslaa tahay oo markaa xaaskaagii iyo reerkaagii aad la joogto arrintanina ay dhibaato kugu tahay waqtiga kulanka aad joogtaan ama uu socdo haddii 2 xabo ama 3 xabo oo iniyahaasa aad iliga saarto waxay bedeli doonaan inay markaa ay kugu sameeyaan inay maskaxdii ay shaqo kala geliyaan in fariintii maskaxda ku socotay ee amarka soo siinaysay inay macdantaadu ay dabada u soo baxdo inay mashquusho taasi waxay ka qayb qaadanaysaa ilaa inta ay xalinayso kulaylka uu sameynayo filfishaasu ee ay maskaxdu ku mashquulayso ee markaa mashquulkaas ay maskaxdu galayso iyo fariinta loo dirayo inta ay ku kala mashquulaysaa wuxuu noqonayaa in muddaho ku caawin doonta oo kaa caawin doonta inay hore u yimaadaan taasina waa qodobada lagu xaliyay ee qaybta herbalistisku ay ku recommended gareeyaan ama recommendationska lagu sameeyo ee lagu xaliyo laakiin ma aha sidaynu hor u tilmaamnay xalka kama dambaysta ee arrintan lagu gaadho maaha qodobka isaguna haddii aad filfil weydo ama markaas aad midhaha madow aad weydo ee kulkulul ee diiran xilligaad isticmaalaysa aad iliga ku qabanayso wax dhibaataa kuu geysan maayaan waa midho dabeeciya oo saafiya shaaha lagu darsadaa cuntada lagu darsadaa sidoodaa loo cunaa qoon xanuunkaa laga cunaa hunguri xanuunka ama dhuun xanuunka ama dalqada qofka markay xanuunaysaa loo cunaa antiseptics bay leeyihiin waxay leeyihiin antioxidant waa disinfection ama markaa waxay ka mid yihiin waxyaabaha inta badan nadiifiya meelaha inta badan xataa caabuqu ka yimaado waa wax si dabeeciya u habaysan oo dhir dabeeciya oo herbala wax dhibaato ah oo jidhka ay yeelayaan ama ay u geysanayaan ma jirto qodobka ugu dambeeya waa markaa inaad samayso chili fruitiska ama waxa aynu nidhaaho basbaasku waxa uu ka mid yahay isagana sidoo kale waxyaabaha kulkulul ee maskaxda qofku marka uu qaniino fariin baa loo diraa
maskaxda ayaa waxaa la gaarsiinayaa impulse fariinta maskaxda la gaarsiinayo inta ay turjumayso iyo inta waxaas ay soo xalinayso ayaa waqti qaadata inkastoo runtiisi involuntary markii ay maskaxdu uga jawaabto haddana xilliga aad kulanka ku jirtaan ama aad goobta joogtaan haddii aad dareento wax degdeg ah in markaa ay soo baxayaan ama xilligii iyo waqtigii inaanay waxba kuugu suuro galaynin inaad in yar aad ka qaadato oo iliga aad ku qabato muhiim maaha dheecaanka inaad liqdo waad iska tufi kartaa dheecaanka uu leeyahay basbaasku haddaad laabjeexan leedahay ama calool hur aad leedahay ama aad leedahay markaa gastritis ama stomach ulcers iyo nabaro caloosha kuugu yaalla aad leedahay muhiim maaha inaad liqdo laakiin waxaad samayn doontaa haddii ilaahay ka dhigo waad iska tufaysaa haddii aad taa leedahay haddii markaa uu kugu tagana in yar oo aad u yar ayaad ka liqaysaa isku dayaysa inaanu marka adiga wax ku yeelin ama aanad calooshaadu ku guban ama aanad kulayl dareemin ama aanay dhibaato kaa soo gaarin baad qaadan doontaa saddexdan dariiqo waxay kaa caawinayaan inaad muddo aad sii haysato tarankaaga iyo markaa macdantaada iyo biyaha inay kugu sii jiraan waqtiga ay markaa kulanka aad joogtaan oo markaa aanay xaalad degdeg iyo aanay horu dhicin oo markaa keenta quwad jab inaad quwad jabto oo keenta farxad la-aantii lamaanaha oo keenta inay hawshii oo qabyahay meesha markaas ay ka fuli weydo ama ay sideedii u dhici weydo ay ku dhammaan weydo saddexdan wadiiqo waad mari kartaa murqahaaga qaybta uurku jirta qaybta hoose inaad aad u adkayso oo jimicsi guud aad wada samayso jidhkaaga gaar ahaan inaad markaa aad caloosha murqaha qaybta hoose intaad dhabarka u seexato lugaha ciidi ku qabato inaad qaybta aad u jarto waa muhim calooshana markaa way kaa caawinaysaa exercisekaasi waa mid aad ku anfici doona wuxuu kugu samaynayaa inuu tight gareeyo maskalka calooshu ay leedahay kuwanna waxay kugu samaynayaan emotionally inay ku bedelaan oo markaa shucuurtaadii iyo maskax ahaan bay wax ka bedelayaan waa basbaaska iyo filfisha ama midhaha yaryar ee madmadow saddexdaa dariiqo ayaa waxay ku ahaan doonaan xal iyaguna arrintaas aad kaga raysato intaas ayaynu ku soo uruurinaynaa waxaa su-aale qabtaan dhinaca facebooka iyo dhinaca gmailka iyo dhinaca kommentiyadaba waad naga soo weydiin doontaan fadlan la sii wadaaga oo u sii sheergareeya bulshada aynu jecelnahay kanaalkeenna inay ku soo biraan ee iyaguna casharada caafimaadka talooyinka caafimaadka iyo fikirkoodaba ay nala wadaagaan fii amaan illah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu